dhiigga cad baa dhamaanaya dhiigga kala afka ka imanaya gabadha dhiigga afka markuu yimaadana labadii isbuucba dhiig baa lagu shubaa Saabiriin Jaamac Wiil labadii isbuucba hal maalin oo kamid ah waxaa jirkeeda lagu shubaa dhiig cusub sababo la xiriira dhuuxii oo ka dhamaaday Saabiriin sida uu noo sheegay Aabe Jaamac Wiil dhakhaatiir badan oo u geeyay gabadhiisa Aabe Jaamac waxay u xaqiijiyeen in Saabiriin ay u baahan tahay in lagu shubo dhuux sidaas daraadeedna looga baahan yahay lacagtii la isugu bedeli lahaa labada qof dhuuxooda deyma aad u badan oo u galay sidii caafimaad gabadhiisa ay u heli lahayd iyo warka ka soo yeeray dhakhaatiirta ee ku aadan in gabadhiisu ay u baahan tahay dhuux in lagu shubo ayaa ah murugta ugu weyn ee haysata Aabe Jaamac Wiil waxaana ummadda muslimiinta ah gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ka dalbaday in si wada jir ah looga qayb qaato caawinta Saabiriin oo xilligan u baahan gurmad gabadha yar waxay ka xanuunsan tahay dhuuxa gabadha yar waxa loo hayaa dhiigga ayaa ka dhamaanaya dhiiggu markuu ka dhamaado dhiigga cad baa dhamaanaya dhiigga kala afka ka imanaya gabadha dhiigga afka markuu yimaadana labadii isbuucba dhiig baa lagu shubaa gabadha saddex dal baan la maray Soomaaliya Itoobiya iyo Hindiya muddo sanad iyo xoogaa ah baan la wareegayay xanuunkeeda markii hore la garan waayay ugu dambeyntii Hindiyaan geeyay Hindiyana wax la yiri gabadha dhuuxa in laga bedelo oo qof la dhashay la keeno oo la soo qaado oo dhuuxa qayb looga shubo mooyee si kale ku caafimaad mayso oo caafimaadkeedu wayda dhuuxa laga bedelo ilaa haddana dhiig baa lagu shubaa oo labadii isbuuc ama isbuucii mar baa lagu shubayaa waana daalaysaa ma socon karto dhiigga ka dhamaanaya dhiiggaas labada isbuucba waa ka dhamaanaya ka bacdi afku ka imanaya markuu dhiigu yimaado afku markuu yimaadona waa istaagaysaa in dhiig lagu shubay u baahan tahay inta dalana ma laga dhaqaale xoog leh oo deyn u badan waa igaga burburay wax dhaqaale aan uma hayo ugu dambeyntii wax la yiri dhuuxa laga bedelayaa qofna la kaalay lacag adigu $25,000 hore igaga baxday waxna dii anigu xoolahayga iyo wixii aan haystay ah waxna ay deyn yihiin hadeerna waxa la rabaa lacag dhan ilaa 30,000 baa la rabaa oo dhuuxa labada qof lagu kala bedelo oo aan tabar u hayn dhaqaalana u hayn sidaa darteed ummadda muslimka ah khaasatan inta afka Soomaaliga ku hadasha iyo inta hay'adaha khayriga ah iyo wixii muslimna wax haysta waxaan ka codsanayaa inay gabadha yar igu soo caawiyaan sidii aan dhuuxa ama caafimaadka loo sheegay ee la yiri dhuuxa in laga bedelo weeye aan ugu heli lahaa ilaahay baa mar awood leh dhakhaatiirtii aan la maray iyo waa kuwa wixii kuwii Itoobiya iyo kuwii Soomaaliya iyo kuwii Hindiya shanta dhakhtartooda ilaa intaas la maray saddex dal baan ku wareegay caafimaadkeedu wuxuu ku soo ururay in dhuuxa laga bedelo sidaa darteed ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa in la soo caawiyo tabar iyo dhaqaalana uma hayo wixii karaankiina ah inaa ummadda Soomaaliyeed ay gaar ahaan igu soo caawido Cabdiqani Boos SBC Boosaaso